السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياسين محمد waxaan jeclaan lahaa bulshada inaan la wadaago laba arrimood oo aad u dhaca waqtiga qaboobaha midu waa shilalka oo aad u dhaca iyo xatooyada gawaadhida oo iyaduna aad iyo aad u badan waqtiga qaboobaha marka sidee baynu uga fogaan karnaa labada arrimood inay nagu dhacaan xawaare aad u siyaada inuuna ku soconin gawaadhida ka horeysa inuu siiyo distance ku filan oo haddii si degdeg ah ay wax u dhacaan oo kale uu dabco qofkii inuu break qabto si uu waqti uu ku filan uu helo waa inuu qofku iska ilaaliyo inuu si degdeg ah jiirooyinka u galo ama uu lane-ka u bedesho si degdeg ah gawaarida ka dambeysa iyo kuwa ka horeeya kuwa dhinacyadiisa socda mid walba intii u jiro waa inuu qofku og yahay oo si markaasi uuna lane-kii bedelanaya si degdeg ah markaa uun gaariga ugu dhicin waxaa weeye wuxuu qofku u baahan yahay sidoo kale muraayadihiisa guud ahaan muraayadihiisa ama ha ahaadeen kuwa waaweyn kuwa daaqadaha muraayahaadka dhammaantood waa inuu nadiifiyo si markaa si wanaagsan uu qofku wax u arkayo dhinacyadiisoo dhan uu wax uga arkay wuxuu kale oo uu qofku samayn karaa gaarigiisa laftiisa waa inuu aadi mar walba uu ka dextaro gaarigu inuu maintenancegiisu uu wanaagsan yahay haday tahay injinka taayirada iyo wixii la midka ah taayirada haddii ay dhammaadaan waqtiga winterka waa waxyaalaha ugu faraha badan ee runtii shilka sababa iyadoo qofkii breakii markuu qabo is yiraahdo uu qaban kari waayo sidaas si lamid ah breakga laftiisa qabashadiisa waxaa loo baahan yahay haddii uu dhulka uu yaalo baraf in aanan breakga aadan xoog u qaban si yaroo tartiib aad u qabato steerinka laftiisa aadan la dagaalamin xagga shilalka waxaan isleeyahay waxyaalahaasu way ku yara caawinayaan inay yareeyaan shilalka ay dadku galaan talabaad xatooyada oo aad u dhacda waxa koowaad loo baahan yahay qofku gaarigiisa habeenkii markuu meel dhigayo gaar ahaan waliba meelaha la wadaago baarkinada oo sida apartmentooyinka iyo meelaha kale haddii aad gaarigaaga dhiganayso ta koowaad waxaad u baahan tahay wax muhiima oo muuqda gaarigaaga inaadan kaga tegin waaladkaaga wax la arki karo bac waxa ku jira aan la arki karin ha kaga dhex tegin waxaad kaloo u baahan tahay gaarigaaga in aadan meel fiican oo habeenkii oo kale hadday tahay meel light leh ayaa la dhigaa meelaha mugdiga badanaa gawaarida la dhiga ee qofkii gelaya aan la arki karin waa waxyaalaha fududeeya gaariga in la xado waxaad kaloo u baahan tahay haddii aad awooddo gaarigaaga meelaad ka arki karto inaad dhigato albaabkaaga hortiisa daaqadaada hoosteeda iyo wixii lamid a inaad meelahaas oo kale inaad gaariga dhigato iyadana waa laga maarmaan waxaa kaloo oo iyaduna ku caawinaysa marnaba waan ku celinaya arrinkaa marnaba gaarigaaga oo shidan ha ka tegin gaarigaaga dadka aad waxay u sameeyaan waqtigan oo kale gaariga way daaraan si ay u kululeeyaan dabeeto guriga ku noqdaan waa waqtiyada ugu runtii faraha badan ay tuugadu eegato intay gaarigii ay xadaan ay galaan dabeetana ay ku boodaan oo la cararaan marka gaarigaaga sideedaba sinaba gaarigaaga intaad u daarto ha ka bixin haddaad gaarigaaga daarto waa inaad ku dhex jirto inta uu kuu kululaanayo si markaas dee aanan gaarigii lagaala cararin inahaasaan kulle isleeyahay aad maanta idinla wadaago haddii aad videogan ka heshid waxaad samaysaa sheer gare asxaabtaada la wadaag aad iyo aad baa idin salaamaya mar kale waa yaasiin maxamed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu